filimka Malik ayaa xalad daawaday raajkumar raw ku soco qamarji waa jili kartaa yarkan suuxala u jilay caadi ma ahan inkastoo dood la galin karo dhigi kara hadii atoore kale loo dhiibay doorka Malik saan uu ka saameyn badnaa laakiin asiga aan ku tixgelin aniga waa soo jiita raajkumar raw qamarji qaabkan haduu ku bilaabo filimada kale improvement uu si sameyn kara biri wuxuu ka mid noqon karaa atooreyaasha action hero inkastoo mar walba lidii ay ku tahay waa jab yar iyo maane sidiisa kala qatar waa marka Malik iska 3 star movie waa dhankayga markii aan fiiriyo halka saac horta brilliant wasaas do film ku socon la aniga 4 star siin la follow-kiisi waxay ma galin iyo sidoo u qaraabanaya ganacsigiisa gooni waay laakiin aniga tayada xala filmka aan daawaday first hour ka hor brilliant ila ahay ninkan waliba filmka sida central oo dhaxaad looga dhigay caadi ma aan sidoo nin dabcan u yahay argudasho u socda maskiin uu yahay hadafkiisa sidoo u noqona Malik inuu dabcan doorkaas uu gaaro shuraaf shuluqa asigan odagaas caadi ma bidaarofka filimada kaalno markas ka qaata doorka uu ku leeyahay caadi ma ahan askariga soo galay qaybaha dambe in counterka wax dilana ninkaas filimo badan ka soo muuqday xogaa waqtiga lagu yaray maana asigana kaalintiisu qaatay waxa kaaga sii daranba markuu dhamaanayo filmka Malik qaab wuxuu ku dhamaanaa Malik oo mar kale soo baxayo oo ayadoo dabaaldeg meel la joogo feesta oo waxa leeyahay qayb labaad amal u eegaya kana qayb laga sameeyo waxa waa Bollywood ku xirban isaga fikirayaan laakiin anyhow ana dhankay waxa waa Rajkumar Raw jilinki si fiican kaga baxsaday waliba gaar ahaan qamarjinimada iyo soo wax u dilay dhiig soo u daadinay iyo marka qaar laakiin iska qaar waxa ku filan qofka hal mar la dili kara qof loo qaadanayo badil oo maanta lagu wada lagu shafay waa laga fiicnaa muuqaalada qaar kooda ka badbadin ay dhanka marka la fiish qaabka dilka oo dhiig loo daadinayo almuhiim waxay tahay first half of inter brilliant kala barka filmka wow factor kadib laakiin graafka hoos u dhacaya sheekada dhan waxay iska noqonaa predictable wax la fahmi karo la saadaalin karo waxa moodaa directorka iga bobsi ma la iga soo gabagabay ma aqaan sida uu hourka hore kaga shaqeeyay qaybta labaad ma kaga shaqeey marka dhankayga Malik waxaan siiyay 3 star aan siiyay gabadha lagu magacaabo Munasha Jaral xitaa filmka inkastoo ay half ka hor xogaa ku yara liidato laakiin qaybaha dambe ama second half dambe kaalin fiican ay ku leedahay waliba muuqaalo muhiim oo sheekada u dhaxaad u qaadatay gabadha lagu magacaabo Munasha Jaral oo ku mataleyso Rajkumar Raw lamaantis ku mataleyso anyhow marka day film la aan ku heeso soo daawo 3 star movie dhankayga Malik uu yahay Rajkumar Raw qamarjinimadiis okay way xogaa galab waa iska ahaad laakiin filmka waa one time watch waa dhankayga Malik sheekooyin hore loo arki jirana waa taa marka 3 star movie aan si intaas aan ka gudbaya dhinacaas iyo Hollywood kan aadina waxaan daawaday Karate Kid Returns mu ahaa ama Karate Kid Legend Jackie Chan ولا أديو أتاسا جاكي وادقوبي I don't know character إن لغو ترجل لك وذاك عادي ودقوبي سعد حتى وادباي مدي كلا تنا وحاسنا جاكي جان فيلم كإن بدنو كبوحة ومدة وقت بدنو كمقيابه saasay talaak markuu soo galaba cuniga soo garab u siinay macalinimadiisa emotionka saaxiibtinimada very friendly uu yahay laakiin filmka aabi hooyo waxa uu cuniga iyo hooyadiisa sheekada filmka lagu dhisay kuwa kale la ifaaltamaan ayagana very strong jealousy adi Hollywood waa taqaan sheekada hadee rabta ahaato 2 saac hadee rabta ahaato 1 saac 1 saac bara ahaato waxay ahaataba dadka waa loo qaybiyaa maba la qadaba Hollywood hadii film uu yahay marka kulli brilliant wada ahayeen dhankayga filmka lagu magacaabo Karate Kid Legend Returns waxaan sii saaxiibayaal markii la fiisho xidig iyo barasi sababta ugu weyn waxay tahay qaabka filmka loo dhigaa macaan laakiin hal mid aan ka niyad kaliya Jackie Chan inuu filmka saas uga buuxo wax badan oo ka maqan marka that's why marka iyo Karate Kid ka hore u daawan jiray kuwii hore ma gaar horta ku oo uu Jackie Chan tababaray cuniga uu dhalay Will Smith arkaas waxa wax alla wixii Karate Kid la sameeyay number 1 waa kaas wax gaar ma 5 star waa kan marka aan expectation waxaan qabo kaas oo kale la mid yahay macnaha qofka markuu wax filanayo iyo waxa uu la kulmay kala duwan tahay dad wanaan ku qiimeenayo waa isoo gali waas marka dhankayga 3 xidig ibarasi xitaa af Soomaaliyan ku dawada bahadeen bil media bil film soo turjuman aad u maasinyiin asigoo English wal heli kara Amazon Prime Video la soo galshay markas internet ku jira marka oo nadiif kaaliska ariga daawada metr in diina nadiif ma ogaada waa iska macquul la daawan kare laakiin 4K HD quality muusan ahayn film macquul la daawan karo marka kana 3 xidig ibaransi midkaasna 4 xidig ilaa 4 xidig ibar u qalma idinka aad ku soo wareejiyay aragtidiina ka dibta odagii filimada koonfur hindi ka soo muuqana mitidka ah laadarka jilay mar dambana awoowi aaba isku matalay filimkii Naya ku jira Race Guram ku jira filimo badan ka soo muuqday waa ninka lagu magacaabo Kota Srinivas Rao odagan wax waa soo jira filimo san ka warqaban asoo 83 jir oo geeriyooday dhawaanahan iska xanuunsanaa gurigiisa Hyderabad ku jirsada rasmiga shaaca laga qaaday laakiin waa nin 750 film iyo ka badan jilay dhammaan shirkadaha kala duwan ka soo muuqday Telugu Tamil Malayalam Hindi wax u dhaafay mala laakiin xaruntiisa ugu weyn reer Telugu aad classic movies oo idin ka soo muuqday waaga horan wuxuu ahaan jiray laadar qamarji dialogue kul adeegsado markii dambana aabay uu iska noqday filmkii Nayag wax xasuusin Ram Jaran xitaa ninka sidoo u jilay caadi ma ahan Race Guram ku jiray filimo badan uu
sameeyay marka maanta koonfur hindi gaar ahaan dhanka Telugu tacsiya u taalo ninkan sanadii 1978 ayuu fanka Telugu ku soo biiray 750 film ayuu ka soo muuqdo dhammaan shirkadaha kala duwan uu la shaqeeyay sidoo kale tan waxaan la iloobi karin kaalimaha uu ku lahaa filimada uu ka soo muuqan jiray mar walba wuxuu ahaa qamar jilaadar awood badan sidoo kale tan filimada marka uu soo galo saameynan inaba caadi ku yeesho bilada badan uu qaatay sidoo kale tan waxaa la iloobi karin xitaa filimkii Athadu ee Sultan Masha Bukaalinta uu qaatay Race Guram oo la sameeyay ninkii Allu Arjun iyo so many classic movies ayuu ka soo muuqday xitaa markii la fiirsho filimkii Julaya Allu Arjun la sameeyay Son of Satyamurti ku jiray ninkan Allu Arjun filim badan la sameeyay laakiin Allu kalimahan atoora uusan la shaqeyn ma jirto markii ugu dambeysay ninka lagu magacaabo Kota Srinivas Rao filimkii ugu dambeeyay ka soo muuqday wuxuu ahaa Kapsa oo 2023 aan daawano Arjandra directorka filimkii la sugu keenay Ubendra iyo Dr. Shiva Rajkumar Kija Sudeep iyo Shriya Saran wadeen ayuu door muhiim ku lahaa marka koonfurta asiyaasa u taalo ninkan waa legend weyn oo xitaa bilada kala duwan qaatay ilaa 9 bilad oo ismaamulka Andhra Pradesh ee Telugu bixiyaan u qaatay iyo so many classic movies ayuu sameeyay sidoo kale tan marka la fiirsho waxaan la iloobi karin film walba kaalinta ka qaada Maharshi xitaa uu ku jiray oo Sultan Mesh Babu dabcan hogaamiyay wuxuu ku matalay Buja Hajj awowaheedu ku matalay markaan lama xisaabin karo wuxuu ka soo muuqday waxa film kasta kaalintiisa uu qaadan jiray markuu filimada soo galnay door cajaa'ib badan u qaadan jiray xitaa filimkii Antarika DVD ku jiray oo Boban Kalyan hogaamiyay ka ahay filimada waaweynka Yavadu xitaa uu ku jiray wuxuu ku matalay Central Ministry uu ku matalay Nayagna iska badaa wuxuu ahaa Qamarji uu ku matalay odagaas waxa waa film waa soo jiray intuu soo jili kan laakiin hadda waa jiita gabar siin xitaa uu la sameeyay ninkii Boban Kalyan koonfur markuu wuxuu ahaa nin ka dhaxeeyo ahaa gaar ahaan ninkaas iyo Telugu waxa classic movies uu sameeyay unbelievable marka Kota Srinivas Rao waa jiita filmadan in badan waa ku daawanay marka qodobkaas barnaamijkeena ku bilaab aragtidiina ka dhiibta